waxaan halkan u imaaday inaan idinku soo gudbiyo muuqaalo ka hadlaya xeebtan waxay ahaan jirtay. Markaad sidaan u soo gasho afaafka hore ee xeebta, waxaa fadhiya dad ku sheekaysanaya halkan, iyagoo ka sheekaysanaya kalluunka iyo waxyaabaha muhiimka ah halkan ka soo baxa. Markaad hore u soo socoto, waxaad arkaysaa dhalinyaro kale oo iyagana halkan waqti ku qaadanaya oo ku leersanaya neecawda halkan ka soo galay. Markaad gudaha u soo gasho, dhinacaaga bidix waxaad ku arkaysaa doonyo qadiimi ah oo taariikhi ah oo la isticmaali jiray waa hore. waxaa teedsan doonyo kala jaad ah oo laakiin markaad eegto isku nooc ah. xeebtu way ballaaran tahay oo hadda way degan tahay. waxaan halkan u istaagay si aan u helo neecawda badda. halkan mar waxay ahaan jirtay xarunta ganacsiga ee ku teedsan xeebaha badweynta Hindiya, kuwaas oo ay weheliyaan magaalooyin kale sida Barawe, Malindi iyo Mombasa. Dhinacna markaad eegto dhismahan qadiimiga ah, waxaa la igu sheegay inuu ahaan jiray hoteelkii la oran jiray Urubo, waxaana imaan jiray dadka lacagta leh, kuwaas oo isugu jira siyaasiyiin iyo ganacsato. kalluunka halkan laga keeno waxaa loo geeyaa suuqa malayga oo halkan ku yaala, iyo sidoo kale waxaa la geeyaa goobo ka mid ah magaalada Muqdisho iyo kawaano ku yaala halkaas oo dad badan ay ka helaan kalluunka. halkaas ama jabalkaas yar halkaas tirsan waxaa la oran jiray moolmool caliyow. dadka taariikhda iyo si fiican u yaqaana, wuxuu ahaa goob uu ku soo xiran jiray maraakiibta waaweyn ee halkan timaada ee ganacsiga u yimaada ayaa lagu xiray jiray. waxaan u soo dhaqaaqnay dhinaca iyo xeebta Geellaka. inta aan la gaarin ka hor ayaa waxaa la kulannay wiil yar oo wata daanyeer yar. kadibna waxaan weydiistay inuu ii dhiibo. kor ma u qaada? kor waa saari karaa mo? Mea mu iqani? Ya? Ha arki jiri. hal mar ii soo baas. waa mar kale iyo muuqaal kale ee galabta waxaan halkaa ku ciyaaraya dhalinyaro yaryar oo kubadda ciyaaraya. marka waxaan u imid inaan daawado. baloonigaan rabay inaan qabsado, waa la qabsan waayey oo iyagaa ishayay oo goolal ay isku leeyihiin. marka waa dhexgali doonaa. soo hal mar ii soo tur. kooxdiinimo haye kooxdiina la jiraa mo noo bilaabo marka. haye halkan waa derbiga xeebta. halkaas waa kawaanka malayga aad u jeedaan. waa sii socon doonaa. halkanna markaad fiirino waa xeebta Geellaka. waa geli doonaa iyadana, waa sii socon doonaa. kadibna waxaan tagi doonaa goobo aad u qurux badan oo xeebta ku dhex taala ayaan idin tusi doonaa. ina keena
wuxuu ka mid yahay masaajidada ugu taariikhda dheer ee dalkeena ayuu ka mid yahay, inkastoo uu ka horeeyey masaajidka Arbac Rukun oo ku yaala isla degmadan. halkaas waxaa ku yaala ceebta Rubo. halkan ayaan eegi doonaa waxa lagu qalajiyaa kalluunka noocyadiisa kala duwan sida yaxasbadeed iyo libaxbadeed oo badda laga soo dhex saaro, kadibna si caadi ayaa loo cuni karaa. aan taaganahay waa geel laqe. ciyaalka halkan inta istaagaan ayay iska tuuraan, halkaas ayay ka soo baxaan, weliba iyagoo gudaha u galaya. halkaas waxaa ku yaala albaab yar, albaabkaas ayay ka soo baxayaan. weliba meeshan qofkaan dabaal aqoonin oo ku dhimanaya. aniga camal hadda haddaan iska tuuro halkan waxaa la yidhahdaa geel laqe. jabal hoos la wareejiyey, jaranjara ku wareegsan. waa geli doonaa, soo raaca. markaad soo gelayso waad ka baqaysaa, laakiin markaad halkaas soo istaagto waa goob dalxiis aad u qurux badan oo aad ka heli doontaan. lala ark lahayn in ay diib soo gali doonaan. halkan isma lahayn in la soo geli karo. aad ayaan u baqayaa. meeshan waa meel aad u halis badan oo laakiin dalxiisku ay aad ugu wacan tahay. meel ka daran, meeshii meel ka daran laakiin oo qurux badan. sidii hore ma aan halkaas waxay ahayd goob ama meel jaranjar leh oo laga degan karo, lagana soo bixi karo. laakiin halkan way adag tahay gacmahaaga oo jabalka aad maaragtay dhibaato kuu gaarsiinaya. halkan ayaan fuuli doonaa.